degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu qadiimsan ee dalkeena Soomaaliya waa magaalo xeebeed ku haboon dhinaca dalxiiska waana magaalo loo doonan jiray barashada diinta Islaamka oo ay ka aflixeen culimo fara badan oo Soomaaliya caanka waxay dalka intiisa kala sinayd burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee dalka haddase waxa ka jira soo kabasho dhan kasta waxa hadda ka jira dhibaatooyin la xiriira dhinaca arrimaha bulshada iyadoo maamulka degmada uu wada dadaalo uu ku doonayay inuu ku hormariyo degmada haddana wali waxa ay la daalaan dhacaysa xaalada adag oo dhinacyada biyo xumi iyo adeegyada caafimaadka waxbarashada walow ay ka jiraan goobo caafimaad iskuul hoose dhexe haddana kuma filna baahida ka jirta degmada ceelasha biyaha laga isticmaalo degmada waa biyo dhanaan ah oo aan ku fiicnayn dhinaca caafimaadka mana lahan degmada dugsi sare oo ay wax ku bartaan ardayda ka soo baxda dugsiyada hoose iyo ayadoo ardayda qaar u soo doontaan xamar ama magaalada tan Muqdisho waxbarashada sare halka kuwa kalena ay iska hakiyaan waxbarashada sidoo kale hal isbitaal ayaa ku yaala degmada kaasi oo aan dabooli karin baahida caafimaad ee ka jirta degmada iyadoo baahida ugu daran ay wajahan hooyada iyo dhallaanka wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ah mid aan si sahlan dadku ku marin waana wado qardajeex ah oo safarka aan ku haboonayn ayadoo ay ku dhibaatoonayaan dadka ku safra wadadaasi oo bacaad gooyay qaar kamid ah shacabka ayaa ka hadlay baahiyaha ay qabaan waxayna ka dalbadeen dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle inay gacan ka siiyaan sidii loo dhisi lahaa wadada iyo sidii ay u heli lahaayeen asaasiga bulshada waxaan ka cabanaynaa labada shay oo kala ah biyo yari iyo biyo qaraar iyo wado jid xumo ah waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka dawladda Hirshabeelle dawladdeena waxaan jecelnahay inay ilgooniye naga caawiyaan maamulka degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka hadlay baahiyaha guud ee ka jira degmada isagoona dhinaca kala sharxay horumarka ay ku talaabsanayso degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe hadda qorshaha aan wadno hawaaye laba option inaan helno biyo macaan qorshiisa hadda oo ku jirnaa assessmentka ayaan bilownay hawshaasi hakad ay gashay waa howlay qabladii ahayd oo mar haddaan soo laabtay inaan fuliyo aan ku iga yihiin midda lamaad waxa qabiga ahayd wadadan isku xirto Elmacaan iyo Warsheekh runtii dhibaatada hayso waa 10 kilomitir oo bacaad ah oo goosgoos ah marka waxa ay qorsheysan hadda aan rabaa in hal kilomitir hataa aniga u suubiyo gudoomiyaha degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Shiidka ayaa ka hadlay horumarka ay ka sameeyeen dhinacyada ammaanka ee degmada Warsheekh amnigana waa 90% waa hadda amniga waana si xoojin doonaa duwalidaado midda kaliya oo maanta aan ku faanayno degmadan waa amni Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho